sheekh cabdallah unba xalay ii sheegay waxaad ka warrami doontaa simaat addaaciya annaajixa aw addaaci annaajix tilmaamaha ama calaamadaha uu leeyahay ninka daaciga guulaystay. runtii su-aasha isweydiinta leh waxay tahay guusha dee maxaa lagu qiyaasayaa? ma dadka tirada badan leh raaca? ma in dowladu qabsado? yani maa miqyaasu najaax? waayo dadku qofku hadduu suuro najaaxa marka hore usii haysto wixii aan suurada ahayn wuxuu arkayaa inaanay ahayn dacwa naajixa. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay nebiye aakhiro iman doona iyadoo aan cidi la socon, mid qof la socdo, mid laba la socdo. maxaynu ku tilmaamaynaa ambiyada dacwadoodii? ma dacwo faashilaba mise waa dacwo naajixa? idan ma huwa almiqyaas? markaynu dhahno dacwaddani way guulaysatay, miqyaaska aynu ku qiimaynayna ama waxa aynu saarayno instrumentku waa waxa ugu cajabta badan leh qoladan technology-ga isticmaasha. oo haddaanad instrument aad wax ku qiyaasta haynin waxaagu qiyaastiisa lama garan karo. marka dacwo naajixa markaynu dhahno maxaynu ku qiyaasaynaa? si kooban waxaan odhan karaa daaciga naajixa waa kii raacay ambiyada sunnadoodii. alambiyaa hum ducaat naajixa iyagunba ah, waayo waa dadkii ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala inay dacwada tan xambaaraan. nebi faashilina ma jiro. ambiyadii ilaahay soo diroo dhammi waa ambiyo wada guulaysatay. haddaba maxaa markaynu idhaahno daaciga naajixa sifaadkiisu muxuu noqonayaa? wuxuun bay noqonaysaa bacdu sifaati alambiyaai fi kitaab illahi inaynu tilmaamno waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa ku sifeeyey ambiyadaasi. ile iyagaa ah qaadat lumma, iyagaa ah hogaankii dhabta ahaa ee ummadda muslimiinta ah, iyagaa ah dadka najaaxooda uu ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo. dhowr qodob oo markaa aan isku xidhnayn baan idin tilmaami doonaa. qodobka koowaad aan odhan karnaa waxa weeyaan ducaaddaasi ambiyada ah waxaa calaamad u ahayd kow dadka inay khaaliqooda ugu yeedhayeen. dadka cidda loogu yeedhayo inuu rabbi ahaa subxaanahu wa tacaala, meel ka sokoyso ay ummadda ugu baaqayeen inaanay jirin. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy isagoo nebi maxamed amraya calayhi salaatu wasalaam, qul haadihi sabiilii adcuu ila allah. kani waa jidkaygii, laakiin jidkan maxaa u calaamada? ilaahay baan dadka ugu yeedhaya calaa basiiratin ana waman ittabacanii. aniga iyo intay raacdayba anagoo basiiro ku sugan dadka waxaanu ugu yeedhaynaa ila allahi subxaanahu wa tacaala. idan dadka meel ka sokaysa in lagu xidha maaha. qofka muslimkii markuu dadka u yeedhayo khilaafa la soo celinaya iyo dowlad baa dhismanaysay, waxaas waa ahdaafi suqra. asalku waxa weeyaan dadkan in loogu yeedho ilaahay subxaanahu wa tacaala. ambiyada waxa loo soo diray waxa weeyaan dadkan inay ugu yeedhaan adcuu ila allah, udcuu ila sabiili rabbik baa ilaahay yidhi. waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah. yaa ka war fiican baa ilaahay yidhi ka dadka ugu yeedha alle subxaanahu wa tacaala. idan waxaan leenahay awal sima min simaat ducaadda naajixa calaamaadkooda koowaad waxa weeyaan dadka ilaahay bay ugu yeedhayaan subxaanahu wa tacaala. wax kaloo ay ugu dhawaaqayaan dadka ma jiro. shayga labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan ay ducaaddaasi lahaayeen agtooda aakhira ka door mudnayd adduunka, oo alithaaru bilaakhira cala addunya. qur-aanka markaad eegto ilaahay nebiyada markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamayaa nebi kastoo leh wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa cala allah. wax ajara idin weydiisan maayo. nebi waliba waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa sidaa dadka ku dheh, wax ajara idin weydiisan maayo.
dacwada najaaxeedu markaa wax muuqda qofku marka uu aakhira u tahay hadafkiisa wax ka sokeeyo uu raadcaynaya marka aanay jirin marka uu dacwadiisa uu arkaya abaalmarkeedu inuu yahay aakhira inuu guulaysto aakhira inuu badbaado naar inuu ka fogaado janno inuu helo markuu kaayi marka nabi waliba fi suurat ash-shu'ara markaad akhrido nabi waliba fattaqullaha wa ati'un markuu yiraahdo muxuu ku xigsiinay wama asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala allah nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam bay'atul aqaba الثانية حيكو صلاysnay daw la galay ansaari way u timi iyagoo ilaahay rasuulkiisa rumeeyay maalinta aakhiraba waxay yiraahdeen naraac annaga ku ilaalinayna waxaanu naftayada iyo maalkayaga iyo ehelkayaga iyo dadkayaga saam u difaacna si lamida ayaan ku difaacina bayda ilaahay rasuulkiisa idan diintan baanu difaacina bay leeyihiin markay taa aqbaleen ayay waxay yiraahdeen anana maxaanu leenahay nabigu alayhi salaatu wasalaam muu ku odhan aniga dabaday baa madaxnimada qaadanaysaa wasiirraa noqon doontaa dowlad islaamiga oo lagu badhaadho oo barwaaqo badan baa heli doontaa dowladda waxaan qaban doontaa saasaa heli doontaa waxa kuma odhan nimankan le naf iyo maalba waanu huraynaa wuxuu ku yidhi walakumul janna nabigu alayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen maxaanu leenahay annagu markaanu diintan u halganno ee ku ilaalino iyagoo garanaya waliba baycada markay gelayeen ay barkood baa lahayn warbalukaadiya hadda carab oo dhan baa meel qura idinkaga soo wada ridi doonto waranka oo waa laydinla wada dagaalami doonaa wixii iyaga loo ballan qaaday waa maxay waa walakumul janna idan daaciga naajixa ahi waa daaci janno raadinaya daaciga naajixa ahi waa daaci ay adduunyada kala door bidan tahay ama ka mudan tahay adduunkiisu akhridiisu ay ka mudan tahay saa awgeed diinta faafinteeda hunguri laguma dalbo xoolo laguma qaato hadday ku soo galaan waa walilaahi alxamd bale culamada badh baa waxay dhahdaan in guusha adduunka la gaadho oo dhami waa qayb ka mida qofka saalixa camalkiisa loo soo horumariyay camalkaagii wax ka mida adduunka lagugu siiyey ayaa lagu tilmaamayay muxuu tilmaamayeen markii muscab ibn umayr uu dhintay ee uu shahaadada helay ee uu la waayay wax lagu kanfo ee maradiisii marka madaxa la saarana caguhu muuqdaan marka cagaa loo saarana madaxu muuqdo saxaabigii ka warramay wuxuu lahaa dee iyagu waxay ahaayeen dad wuxoodii oo dhan ilaahay aakhiro oo ugu dibdhigay muu soo gaadhin guushii muslimiinta ee dambe iyo saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen غنائم baa la helay xoolaa la helay ألف markaad kutubta akhrido dhaxalku ka tagay hebelya dhaxalku ka tagay waa millionaires ألف waa milyanka waayo af carabiga ألف wax ka badan kuma jirin tirada ay carabtu taqaanay saadaradeed ألف iyo ألف la istabadhiga uu buu ahaan jiray milyaneerkan waa erayadan cusub ee nagu soo baxay milyan iyo bilyan iyo kuwa kale af carabiga hore kuma jiro saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen laakiin asalku kaama ahayn asalku wuxuu ahaa walakumul janna sida awgeed ambiyadu aakhiray ka door bidayeen adduunka ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wixii dadka oo dhan lagula dardaarmaya inay tahay bal tu'thiruna alxayata addunya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى تاسبا إلى هاي آخر لقد دور بضوء دونك آخر ضدك اللوجه أيا وحي لفي الصحف الأولى ها صحف إبراهيم وموسى نبي دي هرنا وحي الله شاقي كاسوها إذن أيها الأحبة داعيga naajix waa ka miqyaaskiisu yahay waxan maxana ajar ka helaya waa ka miqyaaskiisu yahay ilaahay raali ma iga noqonaya
imka maqaayis badan baa soo baxda oo cusub oo ah dadku inta uu dheef helayo maadiya ayuu ku xisaabtamaa dadku intuu dheef maadiya helayo ayuu ku xisaabtamaa waxaana laga yaabaa haddii aad dheefta maadigii noqoto waxa uu qof ku xisaabtamayo ama se dadka aad diinta ugu yeedhaysa ay u arkaan inay shaqo kuu tahay warkaagu dhegta xoog u geli maayo waydi nin xoogsanaya lagu arkaa ninka xoogsanaya waa nin xoogsanayu soo maaha wuxuu doonayaa ka xoogsanaya haddii loo arko diinta aad sheegaysaa in waxa ka dambeeya uu yahay xoogsi imaam baad oo mushaar baad ku qaadataa macallin quraan baad oo mushaar baad qaadataa macallin jaamacadeed baad oo mushaar baad hadday dadku suuradda u arkaan de waxay arkayaan nin shaqooyinka ka mid ah la qabanaya kama warramayno dee dadku ileen lama odhanayo baktinaya haddii aan cidiba wax siinaynin haddaanu baytimaalba jirin laakiin waxaa ka qurux badan qofku arsaaqdiisa inuu meel kale ka helayo diintiisana uu seeda u faafinayo taasaa waxay dadka dhagahooda ka geli og tahay markay u arkaan inaad luqmadaadu ku xidhan tahay walidaalika baa nebi waliba wuxuu dadka alla lahaa beri ka noqo inaad waxba ka rabin إلا مركا لا يقول ده إلهي مركو النبي كوي يدادو وما أسألكم عليه من أجر كل مركا الله يدادو معناه ده وحويا بركة النقا وضدك فهمسي وحبا ينادو كربين وحوده أدون كودا ينادو ربين مدحني مدو دا ينادو ربين وحي دتك الدونة يانو دين ينادك الدونة هذا دتك كوار كان من سياسي كرسي كالصعدة وناتاي دين تانا أدوضا يناد كرسي وكدونة يسو dee waxay ka agtooda aad la mid tahay kan kale ee siyaasigeeda isna kursiga raadinayo isagu keeba xaq ku taagan iyo baabka ninkan eegi maayo ee wuxuu ka dhaxarkaa xuduud nafsi inay meesha ku jirto xad nafsi iyo dadku raadaynaya inay meesha ku jirto idan wax leena dacwatu al-anbiya waxay caan ku ahayd inay aakhirad doorbidaysi dacwadka muslimiinta dambe wadaana intay dar alle wadeen xoog bay u socotaa markay xuduuda nafsiga soo gashana waa la isku qabqabsadaa oo muranka bato oo way dabacdaa markaanay xadka nafsiga lahayn bay ka xoog badan tahay marka ay leedahay ad xuduuda nafsiya qodobka saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan simaatu dacwati al-anbiya ee lahayd والالتزام أو القدوة الحسنة انت أنا يدتك وحوشي وحو يو كموغنجري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يو غنتي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحي هاي ينضد في الصدق في التقوى في العفو في الحلم في الرحمة في الرفق يعني وحنا ينكون باقينا ضد إياه غموضة ضد القاد بدن وعفس بدن ما هم لين سمتكان إن لو يري أنت أنبياء لو يري أنت القرآن كآخر نقرأ ساحر أو مجنون كذاب مفتر وحا قرآن كقرآن النبي لو يري متكان لو يري ما هم لين بس هذه إيش اللي نقول يرقبوا واسعون عناه دوودات كلا كاي راح الله هبيك جمي ميسد دابا متكفوا غيره كاحد له يعني وحلا بهاي وحويان قدوة حسن كاي أما قدوة أنا نكور رمينا من التزام كان نكور رمينا وحنا ندتك ويرينا داعي الناجح وكيسك كمواطن ولذلك بان بيد يقول ديقو كدا يدتك ودعينه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حديث ساقران إسان قورتو حديث قال لي وقور ما وقور نبركو كيالو أدوك هالكاس كماري هذا ترى اللهم اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون دنبكو قما هيسو لكن مركا لغو تمام أوران إسان ساشواتا إلا هذا اسكان نبات قبو هالكا جوغا هذا تولكا ودعيسو دبماها مشاكل اللي دريمي ميسي لكن markay ku tumaan ama kii kuugu xigay uu ku garaaco ama uu ku ceebeeyo ama wax ka sheego miyaad cunaysaa mise waxaad leedahay allahumma ighfir liqawmi wa dula wax garanayna idan anbiyadu waxay ahaayeen waxan ay dadka ugu yeedhayaan
waxaanay dadka ugu yeedhayaan ayay waxay ku ahayeen qudwa xasana dad lagaga dayan karo ficilkooda wuxuu ka horreeyay qowlkooda taasaa waxay keensanaysay in la rumaysto waxaan inay dhab ka tahay inaanay dan kale ka lahayn soo marka hore maynan odhan aakhira ku xoog badnayd marka labaadna wixii markuu isaga ka muuqdo waxay arkayaan inuu ficilkoodu dhab ka yahay marka saadiqiin bay ahaayeen sidqa kullu ilaahayna uu run sheega khalqigana uu run sheega dad cabsida ilaahay ka muuqata bay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ahlu sunna waxay yidhaahdaan wuxuu caan ku ahaa waa arxamu khalqi illaahi likhalqi illaahi bay ahaayeen bay yidhaahdaan halka ay tawaa'ifta kale lagu tuhmayey inay ahaayeen dad dadka dhiba oo ama laaya ama mashaakil u geysta ama kan u geysta taa'ifatu ahlu sunna waxay ku caanbaxday waa kaa inay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ku caana oo umamkoo dham iyagu hoostooda ku noolyihiin tawaa'ifta kale laguma hoos noolaan jirin xataa maanta tawaa'ifta yareer ee kristanka ka soo hadhay waa kuwii caalamulislaami u joogay waxa ka dambeeyey waa wixii soo baxay brotestanka gadaashi mucaaradiinta qoladii la odhan jiray qarnigii 17aad wixii ka dambeeyey meelahaas wixii soo baxay أما طوائف النصارى القديمة وإنت عالم الإسلام جوكتا طوائف اليهود القديمة وكوي عالم الإسلام جوكتا وهي يجا هضدت كون حريصة قالوا نحن نولان كرو يقول لك مبدأ قد سيئة مسلم كان كواها أما كاثوليك بي هايين يورثودوكس لبعض ما وحيان يجا هي ويقومادي جرين ويحاقي جرين إذا وحين لنا هي دعوة أنبياء وحي عنك كواهي صدق هي التقوى حلم هي عفو رفق هي الرحمة هي وحي لمده ولذلك با إلهي وحينا ليه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وآيات دينو آخرينه لكن فعلا حقيقة مدد منا نلشي إنما كمتها وحي إلهي القرآن كان يقول المامي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حاولنا واقعا وحيدا إذن بيالي إننا ما الصمينين أيها الأحبة الرجل ورقي جامعات كانوا مالينيا وأون إذن كورك حادينيا لكن وحبانا تحسسينيا داعي الناجحة وحلقوا يقارنا وحكم ده بين لانهاي هذين مري الدون ماها وحدوا باهن طهي وحلقوا يقارنا وحويا زاد بدني نسيته داعي الزاد كيسوا معي صحيح بدن سفر كودري ومشقة صحيح بدو باهنطي داعية ناجحة الصحيح واكي وطا إلهي النبي يسمى كودري محكويري يا أيها المدثر قم فأنذر واركان استدى يوم بالي كاستوضوب يوم كعودك لكن واحد لو بيحكي وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كل هذه الآيات وحي المامية الزاد قاضوا وحي الزاد كقدق الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ورعلس بالغودي بيا باليلي لكن محل له الرئيسي وركا علس نك الرباين وقاضا زاد كان وين وطاه نبي موسى نبي هارون محل غيري فرعون قبطه انه طغى الهي بو شاغين قوقي فرعون وانين الهي قوقيسه تلمامي فرعون كا قوقي وتغى باليلي ومحل زاد لوغا دغ ولا تنيا في ذكري باليلي ولا تنيا في ذكر أنا حسكي يقول هكذا لنا بإلهي إنني أسمع وأرى زادك وتواكا مراقبة الله وذكري إنه الدريمه إلهي سبحانه وتعالى إنه مقليو أركيو إيوه إنه حديد كولي الله سبحانه وتعالى إنه بطن هذا هو الزاد زاد كاسي هدوك ويا هذا وحكلا ديدي تعود العقبة وباطي النبي محمد العقبة وتمكو يمي شيل ما يسن سواء كان ما تاريخ لكم أول آخر
halka baan leeyahay dacwadu lacag bay u baahanto dacwadu ka bay u baahanto dacwadu ka war dacwadu dad iimaan leh u baahanto ilaahay xuskiisa ku baday dacwadani dad aakhiro rumaysan bay u baahantay oo aakhiro ku weynto adduunku qiimo weynaan waqtooda ku lahay kuwa haday heshay soconaysa ama haduu noqdo project iyo mashruuc la yiraahdo mashruuca kale wuxuu u baahan yahay intaasoo dhaqaale u baahan yahay taasoo hay'adood buu u baahan yahay taasoo kale u baahan yahay waa iska mashaariicdii dunawiga ah markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisii muu odhanin dhaqaalaan idin siinaya ee dhaqaalaha qaato dadku way idin raacaya lama odhanin dowladnimo laydiin dhiibaya dowladnimada qaato dadka sanduleeya waxa lagu yiri zaadkiina waa kan zaad ma rabtaan ilaahay ku xidhmo zaadkiinu waa ilaahay ku xidhmo zaadka rasmiga ah wax kan adduunka bidhbidhkiisu waa iska mataacu dunya waa waxa laga yaabo hadduu ku soo galan inuu mararka qaarkood wax ku fudaydiyo mararka qaarkoodna inuu fitna kugu noqdaba waxyaabaha dunawiga labadaba way noqdaan inuu fitnaba kugu noqdana waa la arkaa inuu nolosha bad ku fudaydiyana waa dhici kartaa ama zaadka rasmiga ee la hubo inuu wax tar yahay xaquu wax ka tariyay tan iyo tadababa waxa wax tar ka yahay aakhirada loo socdo wuxuu kale wax tar ka yahay adduunkan inuu joogno marka waxay leenahay daaciga naajixa waa ka zaadkiisa garanaya aan meel kale ku ambanin xoolo iyo magac iyo zaad kale raadine zaadkiisu garanaya صفاتك داعي ناجح لو يقانا وحكم إذا بيدانا حب الخير للناس والتفاني في المبدأ وقف دك خير كلا جعل عسر قلنا ما وحابس كبدا ضدك وين كفان جعل أركو هبل كرارك وين ارتفر حيوله كيا وهبل أنا ما تكدعي هل كذا كمسلم قال وانتو سوى سلامة فرح لهاي مسلم كاسي ونكسر هذا فرح لهاي إنا تكون فرح ده مسلم ككفة أما مسلم فردي بيقعدوا ومشاكل عصب أصل كوا حويا حب الخير للناس ده كائنات خير كلا جعلات إيوه والتفاني في المبدأ مبدأ كائنات كملا كل ما تد علماء الصوفية محيولين جرين الفناء في الله كتب الصوفية ما أخذها قفك وحي مكرمنا الفناء في المبدأ في الإسلام دين تيسة إنه النقضة قف كردما لما قصاني دين المامية ولا تقانين قصة النبي يوسف ولا سوى ظلميي ولا الذي با ظلميي ظلمي سيادون سيبو كاني قبر با سيد ظلمي بقر با سيد ظلميي حبسا لقيي حبسي سنوات بكو جري قف عادي هدaynu qiimayno waxaan oran lahaa qofkaas waa qof ciil u dhamaaday qof nolosha intuu soo socdo dhan la dhibayay waa qofka caadiga ee bini aadamka waxaan oran lahayn ciil halkii uu dambaysuu taagan yahay waa qof aad oran karto mala hadduu aargoosan karo si unbuu aargoosan lahaa isagoo sidaasay u yimaadeen kuwii wax u geystay ويقول بهرتي سكوا عاية إن يسرق فقد سرق أخ له كواوس كعفي وحلقة بقوانا تلهدوا ولا الذي ديل من نبينا ويهاي أنا ضد مسلم وسكعفي قال دي حرطي محكيا هو يجيب دايو قال دي حرطي قال دي حرطي وباهم باوتمي والرياء وضطه بقرك يقول الرياضة الله صافى فصيره كي إلا بيواك الرياضة الله صار على الرياء إلى أنا قرنا إياه مركو بدانا كشري مو حسوسنا لكن بقرك مركو شاقو قرط والله صار على الرياء يوسف وليم يوسف علم الرؤى إلهي بابراي وحقرتي شنية طبعا سنة عين كاسين يسوى الصعدان wuxuu gartay haddaan khitadkaasi la degan in la baaba'ayo ma isiri wargaal waa kuwii ku dhibay hama dhaane hadda uu aamo haddaba intaasoo qora waxbaba ha u geysane iska aamo waa laga tago ordoodhe waxba idin fasiri maaye maxaa dhici lahaa hadduu waxba fasiri waayo
waxaan sawiraynaa in abaartu dadka gam ka siin lahayd dad iyo xoolaba inaan waxba noolaadeen laakiin ma odhanina wuxuu tijaabiyey ummadaasi sidii ay u badbaadi lahayd waa xubbul khayri linnaas wuxuu tijaabiyey dadkaasi sidii ay u badbaadi lahaayeen iyagoo gaala ah markaasuu u sheegay 7 sano caynkaa yeela wixii aa beerataan qaabka u kaydiya wixii aa cunaysaan ka goosta waxa kale sumbuladiisa u daaya saa u kaydiya 7 sano abaaraa ku xigi doona 7daa abaartee dambe ayaa cuni doontaan kadibna sanad barwaaqaaba idinku xigi doona idan waa khayru dad la jeceliye qisada labaadaan in tilmaamaya waa mu'min suuratu yaasiin meel 3 rasuul laga diiday buu yimi oo waliba soo carraysaa ilaahay ka warramaya wajaa min aqsa almadinati rajulun yascaa ninkaasi xilkuu dareemaya waa xil diimeed iyo aakhiro muu is odhanin war 3 nabaa la diiday adigu xaggaad ku socotaa adigu meel 3 rasuul lagu diiday ma dacwaan ka sheegaya ma odhan lahay mise waxaad odhanaysaa abu cismaan baa jooga magaalada dee dacwadu waa socotaa saxiixa maaha 3 rasuul meel laga diiday buu yimi dabeetana wuxuu leeyahay war diinta qaata oo raaca oo caynkan yeela oo kan yeela way dileen isagiina ilaahay wuxuu inooga warramay markuu dhintay ee aakhiratiga siduu u fakarayay cid ka soo warrami kartaa ma jirto alle mooyaane ilaahay baa wuxuu ka warramayaa markii ninkan ay dhintay aakhira qabtay sidii u fakarayay yaa layta qawmi wuxuu leeyahay yaclamuuna bimaa gafara lii rabbii wajacalanii من المكرم الله جعلان لها يا بولي تولكي إني قرطان وحال اللي معي سياعين كانوا إيدا سلامان بوغو أيو ورور قال كي دلي بوحو وروريا إلهي يا فهم سيا وحنون معاه وييقونا إسلام لها يا إنك دعي لكم بينهم بدن ملا وحنوران لها قد كان لي دكو عذاب إف كان لي دكو عذاب صورا الله يتصور يعني وحو فكري يسوي دنتي كاسو خير كلا جعل اذا قفك الداعي مخلص كاي وقفك سيدتك لا جعل محي خير كلا جعل قضبك اللي حالا تلمام يا وحويا صفه الداعي الرسمي انبياء اسكو صفه بيسي والعلم والاخلاص اقول يا طاعت aqoontu waxay tartaa laba shay baan oran karaaba markaynu ka nimaadno cibaadadaada iyo diinkaaga iyo waxaaga inay kuugu asaxayso iyadu dee mabdi aad ku dhawaaqaysaya laakiin min baabi dacwa baynu ka warramaynaa waxay ku korto waxaa ka mid ah thiqatu nnaasi bik dadku inay kalsooni ku qabaan waxaanaad sheegayso waxaa laga yaabaa adigu inaad kelmad xaqa sheegto laakiin cidi baanay dhegaysanin isla intii aad tiri sheekh cismaan cali xuseen hadduu yidhahda in la qaato maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya sheekh cismaanna sheekhnimay ka rumaysan yihin adna sheekh baana kuwa rumaysnay idan waa hiqatu nnaas kalsooni kalsoonida maxaa beeray aqoontaa beertaa dadku qofku markuu noqdo dadku cid ay ku kalsoon yihiin warkiisa way dhegaysanayaan laakiin marka aanay kugu kalsoonayn wiil yaroo ku buuqayo unbay ku arkayaan walidalik waxay leenahay aqoonta waxay tartaa weedhaadu inay kalsooni dadku ku qabi karaan waxay kaloo tartaa dee inaad adiguna awlawiyaadka garan karto dadka maxaad u horraysiin kartaa marka dhallinyaradii mar qura dadkaba diinta u xambaari buu isdha ha wada qaadaane mar qura ma wada qaadi karayaan idan waxay ku baraysaa aqoonta rasmiga ahi maxaad kala horraysiinaysaa muxuu u baahan yahay inaad maanta u sheegto muxuuse u baahan yahay inaad berri u sheegto maxaa ku sugi kara maxaan ku sugi karaynin muxuu yahay qofkan bukaankiisu ninka dhakhtarka ahi dhakhtarba dhakhtarku ka cilmi badan yaanu doonanaa waayo waxaan leenahay wuxuu fahmi karaa dawadu soo dhoweyn karaa laakiin ka kale waxa laga yaabaa inuu dhowr tijaabo ku galiyo bal kiniinkan soo cunaad ku soo noqoto oo haddana kaa bedelo mid kale kuu qoro aad ku soo noqoto
laakiin haddaad kalsooni badan ku qabto waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo ka koowaad ee ku siiyaba inaad ku bogsato idan aqoontu markay si fiican kuu raasukhdo waxay keensanaysaa inaad garan karto qofka dawooyinka loo horraysiinaya kuwayt ikhlaaskuna waxa uu camalku midho ka dhaliya ikhlaasku camalku maxay midho ka dhaliya ikhlaasku markaynu soo duudubna waxa weeya waxaanoo ilaahay dartii aad u qabato waxaanoo markaad qabanayso aanad ku xisaabtamin xuduuda nafsiga ama aanay naftaadu dheef ku yeelanin tusaalayaal kooban aan ku siiyo dadka quluubtooda ilaahay gacantiisa ku jirta ilaahay baa ciddu hidaayada la rabo hanuuninaya adigu ma kala garanaysid adiga waxa habboone ku saarin waxa weeyaan camalkaaga inaad mukhlis ka tahay waxaa laga yaabaa adigu waxaad hadda yaraysanaysaa inuu yahay waxa rasmiga ilaahay midhaa ka dhalinayo wiil yarood hadda qur-aan isaga dhigtay adigu ina yaroo muslimaad qur-aanka u dhigaysa laga yaaba waxaa laga yaabaa kaa gacantiisa in ilaahay dunidaba ku bedelo waxaa dhici karta kaasi kuu u dhigay kuu u sii dhigay kuwa woga shanaad ugu yahay in ilaahay gacantiisa ku bedelo haddaad adigu quusato oo tidhaahdo midhaba ma dhalanayaan wadna waxba kama dhalanaya war adigu goorta wax dhalanayaan ma ogid goorta wax faafayaan garan maysid ma aha xilligaad nooshay inay wax faafaan shaafici ninkii qur-aanka u dhigay muxuu islahaabaad u malaynaysaa imaamu shaafici ninkii qur-aanka u dhigayay ama qalinka u toosinayay ama kutubtii bilowga ahaa uu bilaabay dee inan yaroo muslimo wuxu dhigay unbuu arkayay saxiixa maaha laakiin waxaa laga yaabaa inuu kaasi ajarkiisii dhuranayo ilaa maantada tan bukhaarikii wuxu dhigay maxaad u malaynaysaa inan yaroo muslimo unbuu ahaa un bukhaari oo u yimi isagu bukhaaru noqon doonaa isma lahayn laakiin waxaan dareemaynaa inay dadkaasi malaa mukhlisiin ka ahaayeen wixii ay dhigayeen ilaahay baa markaa midhahan ka dhaliyey adigu markaa dacwadaada ha ku xisaabtamin soomaalidu waxay idhahdaan bini aadamku waa indha ku garaadle intan ku hortaagan un ha ku xisaabtamin hayse odhanin wadna maxaa soo baxay war waxa soo baxay aad u garan maysid waxaa laga yaabaa kunkaa qofoo waxaad u dhigtay hal qofoo yar inuu kaaga faa'iido bato adiga adduunya aakhiraba hal mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala shaafici kale ka dhigo ama imaam kale ka dhiga inuu kaaga fadli bato kunkii qof aad wuxu dhigaysay kaloo dhan inta kale inay cilmigoodu iyaga la dhinteen una la baaba'een waxba raadba ka hadhin waxaan leenahay marka camalkuna shaygaaguu macno u yeelaya ikhlaaskuna waa camalkuu muthmir ka dhiga waa waxaan midhaha ka dhalinaya camalka aad qabanayso ilaahayna wuxuu ina leeyahay war marnaba ha quusanina camal sameeya waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun wasaturadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'minkuba way arki baa ilaahay yidhi walmu'minuun ama kuwa jooga ha noqdaan ama kuwa soo socda ha noqdaane ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki baa la yidhi waxaa camal shaqaynaysaa ilaahay caalimu lghaybi washahaadana waad u noqon waxaad samaysatana wuu kaaga warrami baa ilaahay leeyahy fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waktigii lay qabtay waa iska dhow yaan filaya waxaan ku gabagabaynayaa qadiyad farsamo ah oo ku saabsan casri waliba wuu isbedelaa waxaa laga yaabaa wasaaishu tawqiifi maaha inta badan wasaaishu waa wax isbedela waayo bini aadamka noloshiisu way tatawurtaa meel qudhama taagna see daraaddeed waxaa habboon idinkuna inaad barataan alwasaa'il alxadiida ee bini aadamka loo qanciyo ama wax loogu sheego ama wax looga dhaadhiciyo wax waliba waa fanku maaha dee kan soomaalidu ay sheegtay heestaa kama warramayo kalimat alfan fi lluga alcarabiya
fanka waxaa la waxa tekniiga u baahan مثلا الطباخة وفن سبحان كما قيادة السيارة وفن هو على برطو كورنا هذا انت فرستو الى هذا بريسك سكو دحكرسكا بريس يا بصل يا هيلب يا تماندو يا انت صار سكو درا انت هذا سكو درتو مو بلين سيرون سكو دحكرس maxaan soo baxayo mise khito u baahan goorma la qasaasila goorma lagu shubaa goorma imisa daqiiqadood baa loo daayaa goorma basasha lagu daraa goorma hilibka lagu daraa waa fanni ka waran gaadhiga haddaan ku idhaahdo gaadhigu theory kuu dhigo theoryada meelaha lagu dhigo calaamadahaasi waddooyinka ku yaalin saasaa loo kaxeeya gaadhiga markaad fuushee koowaad geerka wankaa la geeyaa geeru kow baa la geliyaa kileeshka laga soo yaro dhaqaaqa saliiddaa la siiyaa isaa darawal ma ku noqonaysaa waad u malaynaysaa haddii gaadhi lagu dhiibo يعني واحد كستوحي يباهي مركا تدريب إذا مركا علومتي ندم يستان تدريب كان قال إن تفرسم براتو بنادم كسال الله الله دتك واوين دتك يرير مركا ور عادية شيء يسو مركا خطبة جماعة شيء يسو مركا درس عادية آخر يسو مركا قف فردي يسكال الله يسوي شيء يسو وحلا يا مدو ولا بينك كلك قدي سنتي markaad muxaadara akhriyayso wax waliba inay waxa kale ka gadisan yihiin baa laga yaabaa ka hor haddaad intaad caamays hortaagto tiraahdo waan wacdinayaa dabeetana aad muqadamada ka bilowdo kelimadan iyo luqada carbeed waxay ku tahay iyo qawaamistu waxay dhigtay iyo caamadu maxay ka garan doontaa yani waxaa laga yaabaa inaad akademiga sidii ahayd jaamacadda wax looga dhigi jiray inaad u wado laakiin dee caamo marka lala hadlayo halkaa lagama bilaabo إذا وحوالي بوا فن أباهن إن التدريب كيس برته مرة دا عمل كربتان إن قبطان تدريبات كيس نقاطع صلى الله على نبينا محمد وعلى